Kusoo dhawaada Somali TV habeen kasta saacada noo kale. We're going to have Shadia next. When we were writing these reflections, Shadia was one of those students that took the extra time and took it home, re-edited her work, came back to program with 2 pages full of her thoughts on Somalia. So here she is today to share all of that with you. Look around the room. That Somali child is a survivor of 2 decades of a long war that has been going on in Somalia. People are in hunger. People die every day due to the lack of no good treatment, food, water, and shelter. Take a good look at us eating more than 3 times a day, having a roof over our heads, good education thrown out at us, receiving new clothes every other week, and the list keeps going on and on. I occasionally see donation boxes in stores, mosques, streets, etc. with only several coins, and if they are lucky, $1. Just think, if you donate 1 penny, $1 or more, it can save lives. Kids don't have video games, dolls, action figures, and all the toys we have. Instead, they have to live in fear of death and losing another family member. So what can we do to make it better? Well, for starters, we can raise awareness of this issue and create a good, stable fund. Just imagine all of us can make a difference. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج كي سوم تي في أنا هبي والله معلم والله بس عدنا وكل سوق اللي تشرني إن واحد أركي ترتنا إنه استوديو قفلنا كسر تبينين لكن ما أنت ويكدو أنتهاي إن واحد نشجنا وسيال واشنطن وويستجيت ووايت سنتر وسكول كان نشجنا ووايت سنتر هايتس إلمنتري سكول ayaanu joognaa marka waxaan jecelahay bal reasonka halkan keenay iyo waxa Som TV uu maanta qabanaya inaanu idin tusno ardaydii waalidiintii iyo iskuulkii community wax qabadka ay qabanayeen iyo bal ujeedada ugu weyn ay wadeen inay maanta tahay ta lagu caawin lahaa ubadka yar ee dhibaataysan ee wadankeena jooga dhibka weyn ka jiro haddaba fikradan waxa iska lahaa sida naloo sheegay waalidiinta iyo iskuulka iyo community-ga na soo casumay noo sheegay haddana Som TV caruurta Soomaaliyeed ee halkan badankooda ay ku dhasheen ama ay ku wada dhasheen aan oran karayo ayaa waxay noqotay isbedel ka yimaada kadib markii ay newsida ka arkeen ama YouTube ama Facebook meelo badan ay galeen dhibka ka taagan iyo aragtida ay leeyeen caruurta Soomaaliyeed haddaba waxay yiraahdeen anagu awood uma lihin aan wax ku bedelno dawladda ama wadanka Soomaaliya waxa ka jirta laakiin waxaanu tusaynaa support-kayga iyo waxaanu ku caawin karno haddii buug ama qalin Allah ka yeelaan u diri karna ama waxaanu ku caawin karno taas waxay keentay in waalid badan ka qayb qaato community-gu ka qayb qaato iskuulku ka qayb qaato dad badan ay yimaadaan oo noqoto inay support gareeyaan caruurta Soomaaliyeed oo halkan ka arkaysaan balse haddaba waxaan jecelahay oo aan soo helay oo iyadu qayb weyn ka qaadatay ahayna dadkii wax soo qaban qaabiyay waalidka caruurtana kamid ah bikin oo dhinacayga joogta ku soo dhaw bikin markood السلام عليكم وما سنتهاي مصطف waxaan kamid ahay waalidiinta xaafada oo deegaan kamid ah marka waxaan oran lahaa aad baan ugu faraxsanahay waa Center Heights in ma taqaana caruurta fikradan ay la imaadeen waxaan jeclaan lahaa iskuulada kale oo caruurta Soomaalida ay dhigtaan in sidaan oo kale si ka si fiican inay sameeyaan sababtoo ah caruurta waxa u saamaxday sidan inay u sameeyaan waalidiinta inay garab galaan ma taqaana hooyooyinka baraarujiyaan marka waxa loo baahan yahay dadkii in saan kale isugu xirmo dadkii anagana sugayaan cid kale ma lahan dad kale uma jiro ma aragtay uma maqna marka anaga u maqan waxa loo baahan yahay in la isku xirnaado in ma taqaana caruurtaadii waxbarashadoodii in ma taqaana la fiiriyo in waxaan oran lahaa wixii shilinka qof walba awooda $1 xataa inuu ku rido ma taqaana caawiya loo baahan yahay marka iskuuladka waxaan jeclaan lahaa inay ugu daydaan haddana waxaan mikrafoon ku wareejinayaa Farxiye Aadan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Farxiye Aadan Xasan waxaan deganahay xaafadda Green Bridge iskuulkan waa Center High waxa ay dhigtay 5 caruur ah maadaama anagii wadankeennii uu noqday wadan burburay 20 sano aan wax ka qabanay ayna jirin waxaan isku daynay bal in at least ma aragtay contribution caawino baraarujin caruurteena yar halkan ku dhalatay si ay noogu badbaadaan ay u bartaan culture-keena iyo dhaqankeena in aan bal at least wax yar ka qabano waxaan ku baraarujinayaa ardayda iyo waalidiinta degan state of Washington inay sidaan oo kale iyaguna at least ay ilmaheena si ay u bartaan dhaqanka ama culture-ka ay macnaha wax yar ka sameeyaan thank you haddana waxaan ku wareejin doonaa walaashay Firdawso assalaamu calaykum walaalayaal waxaan idin sheegaynaa inaan halkan anaga aan degannahay White Center community school White Center inaan degannahay iskuulkaanayta ayaan iskugu nimi anagoo ah caruurta waalidiintoodii waxaan idinku baraarujinaynaa wadankeennii dhibaatada taalo caruurta rafaadsan hooy la'aanta
hooyada dacdaraysan dhibaatooyinka yaallo si aan wax ugu wada qabanno gacmo wax wadajir bay wax ku gooyaan ayay Soomaali ku maamahday inaan isgarabsanno oo isgarab istaagno oo baahida iyo dhibaatada dhulkeena taalo aan wax iskaga qabanaa waxa daadsan oo rafaadsan waa dumarkii iyo caruurtii marka sidaas awgeed ay wax idinkugu sheegaynaa sida annaga aan iskugu nimi oo kaleeto idinkana inaa iskugu timaadaan hal $1 qof meel ku rida waxba uma dhimayso walaalkaaga baahana waxbay u taraysaa waxaan ku wareejinayaa walaashay Libin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وحالة لها لبن عقال halkan waxaa ii dhigata gabadhayda iyo gabdhaha habreeraha ilmaha Soomaaliyeed oo dhan oo halkan maanta caawa barnaamij fiican oo qurux badan noogu sameeyay marka insha Allah waxaan aan sugaynaa in iskuulada kalena ay nagu daydaan oo ay awareness ku sameeyaan in dhibaato wadankayaga ka jirto ilmaha yaga dhibaataysan yihiin hooyooyinkii ay aad u dhibaataysan yihiin oo qaxooti meesha ay jiraan in la tusiyo picture-rada dhibaatada dhaqanka la baro marka waxaan insha Allah ka rajaynaa iskuulada kalena inay sidaan oo kala sameeyaan oo maartay ilmaha oo aad u ogeysayaan wixii aqalada wax loogu baro oo la tusiyo waxa dhiba jira Assalaamu calaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Maryam Faarax waxaan deganahay White Center halkan waxa ay dhigtaa 2 wiil marka hade walaalahay baa soo dhameeyay sheekadii oo dhan maxay ahayd in dadku isku meel unbu wax wada wadaaye in la wada aan noqono dad isku wada xiran meel walba wada joognaba Seattle inkastoo lagu badan yahay haddana waa inaan xoogayga iyo aan muujinaa iyo qaaraankii wax walba bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Firdooso xaaji waxaan dhammaan waan salaamayaa dadka islaamka ah aniga dadkan waa kaga inda furanahay wadankii waxaan ka imi goor dhow waxaan moogahay 10 bilood kaliya dhibaatada taalana waan ka warqabaa ama qaxooti ha taalo ama wadanka gudihiisa ha taalo waxaan ku dhiirigelinayaa walaaladeyda Soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay dadka walaaladood oo dhibaataysan ee rafaadsan inay wax la qaybsadaan waxaan leeyahay in aad wax siisaan haddii aad iska jartaan biilkiina $1 kaliya qofkaas baahana wax way u taraysaa ee dhibaataysan adiguna xag aakhire iyo xag adduunyaba waxbay ku taraysaa sidaas ayaan idinku baraarujinayaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha meel kasta ay joogaan Amerika ha ahaato Yurub ha ahaato meel kasta ay joogaan qurbaha waxaan ku baraarujinayaa inay walaalahooda dhibaataysan siiba waxa dhibaatada u jilicsan ee u nugul waxa weeye waa dumarka iyo caruurta idinka caruurtiini alxamdulillah ilaahay waxbuu idin barayaa meel nabadeedna waa joogtaan marka waa inaad fiirisaan walaalaha rafaadsan ee dhibaataysan ee wadankii joogo dacdaraysan waa inaad fiirisaan walaalayaal caruurtiina waxaan idinku baraarujinayaa inaydan dhaqanka ka tagin ee dhaqanka aad u sheegtaan ee af Soomaaligana aad bartaan waxaan ku arkay halkan caruur badan oo af Soomaaliga aan aqoonin waalid badan oo af Soomaaliga diidan inay ku hadlaan adiga luqadda baro laakiin si gurigaaga waa inaad kugu dhaqantaa diintaada iyo luqadaada almuhiim labadaas ayaa idinku baraarujinayaa dadka islaamka ah ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaad had iyo jeer baaynu ka aragno dadka badanaa wax qabta ama dadka isu yimaada community waa dad waaweyn waa dad Soomaaliya ku soo koray runtii fikradoodu way ka duwantay Westernka ama Mareykan markaaynu joogno si wax loo qabto halkan cid walba way isku xidhantay haddana xagga waxbarashada macalinka waalidka ardayga intaba laakiin maanta waxaanu aragnaa dad aad u daayar oo iyagu doonay wax inay u qabtaan ujeedadu ma dadkeeni waa weynaaba sii daayeen waxba meel loo sii socon mise waxa weeyaan taasi see kula muuqata badan waxay ila muuqataa 22 sano ayaa waxaa socday dagaal rabsho dadka waaweynaa wax weynay qabanayaan ma jirto caruurta yar waa caruur yar oo macnaha wax la baray waxay raadinayaan bal culture-koodii ama dhaqankoodii meesha ay ka yimaadeen oo meesha aad aragtay lagu heshiin lahayaa 22 sano marka saasaan u malaynayaa in iyaga ay ciyaalka yar maanta ay u raadinayaan dhaqankoodii culture-kooda bikin haddaan adiga ku sii weydiiyo runtii da'da waa middle school waxay ku jiraan halkan ay caruurta ku wada dhasheen waxaan odhan karaa qaar weligoodba may arag Soomaaliya haddaanay fasax ku tagin wadamada sida Kenya ama wadamada kale ee Afrika inuu badanaa tagno caruurtani fikradda iyaga iska lahaa sida nolol sheegay ama waalidkuba noo sheegay waxa ay soo qoreen halkan kaga hadlayna iyaga iska lahaa haddaba dad badan baa halkan naga daawanaya runtii maaha uun inta isugu timid iskuulka ama Wasiyaal aynu joogno Siyaal Washington naga daawanaysa TV-ga dad badan baa website-ka naga daawanaya sidee isbedel aad kugu keentay ama aad u oran kartaa maadaama aad waalid tahay iskuulkiina qayb ka qaadatay
in caruuro sidan oo kale la sameeyo ama aad aragto oo la isu yimaado jaaniska la dhiibo oo dadka waaweyn odhan haddaanan anu waxaan wadin waxa ma soconayaan wallaahi horta ayagaa la yimaadeen fikraddan caruurta neighborhood house projectigay sameynayeen wax ka mid ah bay ahayd in ma garanaysaa ka hadlaan cunug walba inuu ka hadlo mataqaanaa dhibka Soomaaliya ka jira marka anagana support weyn waxaan ku siinaa waxa waaye in caruurtii su'aalo ku weydiinaya habeenkii hooyo wadankeegii waxaan oran lahaa maxaa ka jira marka waxa jawaabaad siinaysaa caruurta de maartay fikrad baa siinaysaa waxa dhibaatada ka jira Soomaaliya ilaa iyaga khibrad uma laha weligood ma arkin de gaajo dhib maaragtay marka waxaan oran lahaa gabadheeda kulay horta way soo aragtay Afrika hal sano soo joogtay iyo walaashay caruurta cunugteeda marka way ogtahay dhib ka jira laakiin caruuraha kalena waxa u maleynaa dawaardiintii inay tusayaan YouTube-kii iyo maaragtay iyaga u sheegayaan rafaadkay soo mareen dhibkay soo mareen waxay la kulmeen Soomaaliya marka de waa inaad caruurtii afka bartaa oo ma garanaysaa tiraahdaa af Soomaaliga tiraahdaa waa gabadheed hadda aniga af Soomaaliga way qori kartaa wana akhrin kartaa marka sababtoo ah waxa waaye habeenkii marka intay seexanin 5 daqiiqo 10 daqiiqo wax kaama tarayso inta qof kale la hadli lahayd cunugaaga waqti gali oo ma garanaysaa waxa tiraahdaa okay hooyo Soomaaliga sidan baa loo qoraa waa isku mid because afkayga sida Ethiopianka sida Chinese ka loo qoro ma ahan waa alphabetical order marka easy bay u tahay caruurtii marka u qortay ayaga baba akhrin kara marka muhiimad waaye maartay in dhaqankii caruurtii oo habeen walba uga sheekaysa 10 minutes 5 minutes asiiso wax ka tirmayso waayahay taas waxay ahayd qaybtii iskuulka aanu joognay waa White Center Heights Middle School insha Allah hadii la hayraa qaybta kale aynu gudbinaa hadii la hayraa Hello, my name is Shadia. I'm in 6th grade and I go to White Center Heights and I love Somalia. Hi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ikran. I'm Ikran. I'm in 6th grade. And next class Somalia is good for I've seen that. Hello, my name is Sabra and I'm 11 years old and I go to White Center Heights Elementary and we did this organization to raise money for Somalia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Edna. I'm in 5th grade. I go to White Center Heights. I like this because it's helping us raise money for Somalia and because there's people in Somalia that are hungry and there's nobody to help them. Assalamu alaikum. My name is Huda. I'm in 5th grade. I go to White Center Heights and I like Neighborhood House because we get to help people in Somalia. My name is Runa. I'm in 3rd grade. I like this. I like when we do this because we're raising money for Somalia. My name is Aliyah and I'm 2nd grade and I like this because we're raising money for Africa. I hope you all donate and tell your friends and family and help the people who are in need that don't have clothes, shelter, and money, or even water. داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لنا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لنا فإذا وعى القرآن حين لنا اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأقوال